kulanti wanaagsan daawadayaal waxa aad u soo badanaya asxaabta soo booqanaysa channelkeena Aayaha Nolosha TV oo kontomeeyo kun gaaraysa laakiin waxa aad u yar dadka heli kara muuqaaladeena ee ku xiran channelkeena Aayaha Nolosha TV haddaba haddaad ku cusub tahay fadlan subscribe saar gambaleelkana taaba si aad u noqoto saaxiibka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena haddii aad rabtid dib ayaad u daawan kartaa fiidiyoyo sheekooyin qisooyin jecel maad iyo madadaalo oo aynu hore u soo gelinay kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii toddobaad ee sheekadii ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad haddaba daawadayaal intaan u gudagelin sheekada aan hal iyo laba ka xusa sidii caadiga ahayd qaar ka mid ah daawadayaasheena aadka ugu xidhan sheekada iyo fikradihii ay ka dhiibteen Jack Films ayaa yiri ama tiri maanta ayaan ku soo biiray aad ayaan idin salaamayaa dhammaan Aayaha Nolosha TV iyo inta ku xidhan from Switzerland waan ka qaadnay saaxiib Salman official ayaa isna yiri wallahi jacaylka nagaad iyo Cabdullaahi waan la yaabay waan ku raaxaystaa qisooyinka Aayaha Nolosha TV Faisa Xasan ayaa tiri waad ku mahadsantihiin sheekooyinka xiisaha badan ee aad inoo soo daynaysaan Abdikaafi ayaa isna yiri mardhow ayaan ku soo biiray channelka sheekadan aad ayaan uga helay waxaan idinka codsanayaa inaydan inaga joojin Nasro Ahmed Jaamac ayaa iyaduna soo gabagabaysay oo tiri Aayaha Nolosha TV maanta ayaan ku soo biiray qisadan 6 qaybna waan wada daawaday runtii waa qiso itaabatay qofkii qalbi leh uun baana dareemi kara haddaba haddii aan sii ambaqaado sheekada daawadayaal qaybtii 6aad ee sheekadu waxay inoo maraysay Cabdullaahi oo inta iska baaray geesinimo dambaal jacayl u qoray nagaad laakiin ay diidma qayaxan hor dhigtay taladuna ay ka ciirtay sidii caadiga ahaydna Cabdullaahi wuxuu miciin biday Filsan oo markay xaaladdu ku cuslaato uu la tashan jiray kuna dadaali jirtay markasta inay ka qafiifiso culays ka saaran Filsan waa gabar nagaad ay asxaab yihiin Cabdullaahina ay aad isugu dhow yihiin Filsan waxay aad uga carootay ficilada xunxun ee nagaad Cabdullaahi kula kacayso iyadoo u adkeysan weysay sida nagaad wiilka jacayl u bahdilayso waxayna rabtaa inay markan Cabdullaahi runta ku cadayso haddaba Filsan ayaa ku tiri Cabdullaahi dhageysan nagaad niyad kuma hayso iska ilow ka saar niyadaada oo ha u ogolaan inay noloshaada qasto Cabdullaahi ayaa ku eegay indha muruga leh oo aad arkaysa in maanka wax soo faraya hadalka Filsan diidan yahay isagoo aan joog u odhan Filsan oo hadalkeeda sii wadata ayaa ku tiri maalintii dhaweyd ee aad ii dirtay waxay igu tiri ninkaas niyad uma hayo aniga oo hor fadhiya ayayna nin kale telefoon u dirtay oo sheekaha saawa ah halkii uga bilowday waan arkayay aniga ayay ii jeeday oo waxay doonaysay inay fariin ii soo ka farto in aan ku sheego oo kugu idhaahdo naagtani mid niyad ku haysa maaha ayay doonaysay in nagaad rag kale la sheekaysato la haasawdo waan ogaa iminkana waan ogahay laakiin inay sidaas iigu joogsato kama filin ayuu Cabdullaahi ku calaacalay kuna yiri Filsan oo maxaad iigu sheegi weyday ayuu sidii nin wax ka tari karaya Filsan ku yiri in aan ku niyad jabiyo ayaanan doonayn ayay ugu jawaabtay waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee Aayaha Nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya
candhuuftiisii ayuu dib u liqay. Cabbaar ayay halkii isaga iyo Filsan iska fadhiisteen. Markii saacadii qadadu dhammaatay ayayna ismacsalaameeyeen. isagoo intii hore ka fudud ayuuna maalinka kulankii Filsan ka yimid. laba tashi oo xoogag waaweyn ayaa maankiisa ku hirdamayay. mid waliba inuu isaga raaco ayuu ku jujuubayay. ka had oo inta aad samirto wax walba liq oo iska dhaqaaq ayuu tashi ahaa. kan kalena wuu ka soo horjeeday, bal tab kale baadh ayuu ahaa. midna isaga oo aan go'aan ku gaadhin ayuuna gurigiisii yimid. gurigu wuxuu ahaa cidlo, qashin baa dhex eegaagay. boorka ka soo baxayayna waxaad moodaa goob ay dhawaan col ku dagaalameen. intuu ka fakirayay Nagaad ayuu hilmaamay noloshiisii kale. albaabka markuu furay urta ka soo baxda waxa ay ku lahayd meeshani nololi kama jirto. tabtaas baa maankiisa midhidh kasta ama xilligaas farayay inaysan nololi jirin dhankiisa. arrin uusan hore u malayn ayuu ku fakiray. dembiga oo dhan iyo waxa aad tabanayso iyo mas'uuliyadeeda oo dhan Nagaad dhakada ka saar ayuu go'aansaday. gurigii ayuu nadiifin ku bilaabay. darsan shaarar iyo saraawiil ah oo uskag meel halkaan ah iskula huursan ayuu qasaalada ku guray. daaqadihii oo dhan ayuu masaxay. daahyadii ayuu bedelay oo dar cusub ku xidhay. madbaqii oo shooladii ugu horeysa ayuu si fiican uga shaqeeyay oo meel walba ka dhalaaliyay. dabqaad halkaan yaalay ayuu dhuxul holciisa ku shubay oo uunsi garka u geliyay. meel nololi ka jirta ayuu gurigii ka dhigay. dharkii uu dhaqay oo dhan ayuu wada kaawiyadeeyay ama feereeyay oo intuu laalaabay armaajada ama kabadhka ku guray. markuu hubsaday in hawshii guriga u dhammaatay ayuu maydhay ama qubaystay oo intuu cidiyihii iyo gadhkii iska gaabiyay koob shaah ah oo bigeys ah samaystay. kadibna bartii uu hawsha ka fulin lahaa buu is-hoos taagay oo marba dhinac ka eegay. markuu hubsaday in wax waliba caadi noqonayaan ayuu iska fadhiistay oo shaahii dhammayso is yidhi. koobka shaaha ah oo aad u kululaa ayaa ku kalifay inuu muddo door ah ama cabbaar ah oo uusan ku talagelin meeshii sii fadhiyo. fadhigaas soo kordhay ayaana wuxuu keenay waqti soo kordhay. waqtigaas ayaa isna keenay fikir hor leh. maxay odhan doontaa ayuu ku fakiray intuusan ku dhaqaaqin fulinta qorshihiisa. ma dembiga ay leedahay ayay qaadan doontaa Nagaad mise way isdiidsiin? dadku ma ogaan doonaan inay ku lug lahayd wixii ku haleelay? Filsan maxay tolow oran doontaa? miyay Filsan kala hadli doontaa Nagaad wixii ay dhigtay? iyo su'aalo badan ayuu isweydiiyay Cabdullaahi. sida waxyaa jiirka wanahay beerkiyo halbowlaa iswaraabshan u wadaagi jacayl. markuu kaaga waraabshay u wadeeca kutaabshay ina kaaga wareego halka kaaga dhaqaaqo. marka kaaga waraabshay u wadeeca kutaabshay ina kaaga wareego halka kaaga dhaqaaqo. inaga isku wacnayne maxaad iiga wareegtay? 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 ma waxaan u dhintay jacaylkii Nagaad? waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa. waa tabintii Nuur Shariif Shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan Cabdullaahi Cawad. haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee Nagaad iyo dhibanahan uu caalamku ka heshay, subscribe sar channelkeena Aayaha Nolosha TV lana soco habeen kasta oo Axad ah qayb ka mid ah sheekada.